maxay maadada copper mugga jirka iyo khatarihiisa? Waa maxay maadada copper ee jirka? Maadadan copper waxay u qabataa in badan oo munaafacaad ah jirka. Waxay u badan tahay dheeb ama cunto shiidayaal. Saan ognahay, quud kasta oo aan liqno waxay maraan hab dheefshiid. Dheefshiid kastana waxaa sameeya dheefshiide. Maadadan copper waxay u badan tahay oo ay ka kooban tahay dheefshiidayaal. Jirkeenna waxaa ku jirta ilaa 100 miligram oo maadadan ah. Shaqada copper. Maadada copper waa laf-dhabarka cunto shiidayaasha iyo hab kasta oo dheefshiid. Tirada dheefshiid ee ay ka kooban tahay maadadan waa mid fara badan, sida tyrosinase, cytochrome oxidase, iyo in aad u badan oo kale. Ilaha laga helo copper. Maadadan copper waxaa laga helaa beerka, kelyaha, hilibka, ukunta, haruuryada, iyo khudaarta cagaaran. Mugga aad u baahan tahay maalintii. Mugga dadka waaweyn looga baahan yahay inay qaataan maalinkii waa 2 ilaa 3 miligram maalintii, halka ilmaha iyo carruurta looga baahan yahay inay qaataan 0.5 ilaa 2 miligram maalintii. Xanuunka uu keeno. Maadadan copper oo ku yaraata jirkaaga waxay kuu keenaysaa xanuuno badan sida xanuunka laleemada ama gacmo gariirka. Xanuunkan wuxuu ku dhacaa qayb ka mid ah unugyada maskaxda oo toos ugu xidhan ama koontaroola murqaha, kadibna murquhu ay giijismayaan. Waxaa kaloo kula soo gudboonaanaysa xanuunka meningitis hadday kugu yar tahay maadada copper. Xanuunkan wuxuu yimaadaa markii calooshu weydo ama soo gaari weydo maadada copper, taasoo sababaysa inay ka soo baxdo tin midab la'aan ah oo haddana iska go'go'da. Sidoo kale, maadadan oo ku yar jirka waxay sababtaa qalalka xididada, midabka maqaarka oo ku beddelma, dhiig la'aan, iyo dhuuxa oo ka dhamaada.